firaaqadaada maxaa qabataa madaxweyne ahaan markaad jaanis heshid runtii firaaqa madaxweyne ma laha may inta uu jiifa mooyee firaaqo xitaa wax lagu akriyo ma laha firaaqo sports lagu sameeyo ma jiraan maxaa yeelay intaas waxaa heli kartaa markii uu dalku institutionskiisa dowliga uu dhisan yahay markii baahidu dadku ay maxaan ku raahdaa ay yar tahay markii dalku uu dhisan yahay markii qof walba uu qaybtiisa ka wado shaqada yaa laga yaabaa madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta sarsare inay helaan waqti ay maxaan ku raahdaa naftooda siiyaan laakiin runtii waqtigaan helaa haddaan helo 5 saac oo 4 saac oo jiif haddaan helo maalintaas waa nin nasiib badan naanaysta farmaajo maxay kugu baxda waa su-aashii ugu dambaysa aan isleeyahay dabcan naanaystana aniga ma lahayn aabbahay baa lahaa aabbahay wuxuu ahaa maxaan ku rahdaa SYL horseedkii SYL ahaa dhalinyaradii waagaas xoreynta dalka qayb ka qaatay marka talyaaniga xiray wuxuu xirnaa muddo 10 sano ah talyaaniga waxay siin jireen dadka xiran farmaajo siin jireen lama aqoon marka isaga farmaajadu jeclaa marka Soomaalidu ma ogtahay naanaysaa waxay ka timaadaa qofku si weeg yahay iyo wuxuu u badan yahay inuu sameeyo adiga ma jeceshaa farmaajo ma jeclay madaxweyne sida muuqanaysa tan iyo markii lagu doortay iyo xilligaaga ololaha iyo hadeerba taageero xoog leh baad ku dhex leedahay shacabka Soomaaliyeed wala uu jiro mucaarad haddana marka loo barbar dhigo maxaafidka dowladda taageersan ee shacabka ahi aad buu u badan yahay maxaad ku kasbatay baad isleedahay shacabka intaas leeg ee ku taageersan shacabka Soomaaliyeed waa dad runtii wanaagsan xaqiiqo waay meel kasta ay joogaan waxa dagaalsan iyaga ma aha waxa dhib ku haystan waa iyaga shacabka Soomaaliyeed haddii ay arkaan qof iyaga danahooda ka shaqeynaya aniga keligay maaha qof walba oo ay arkaan danahooda inuu ka shaqeynayo khasab way raaci marka anagu waaba sheegnay waxaan idhi dowladdan dadka iska leh marka inay haystaan oo xafitaan oo ay la shaqeeyaan yaa waxaan ku gaari karnaa mustaqbal wanaagsan iyo horumar marka aniga ma aha waa shacabka dad wanaagsan ah marna waa la khaldaa oo dee madaxdu waa khaladaa marna waxaa la rabaa in wax wanaagsan lagu hago marka insha Allah anagu waxaan isku dayaynaa aan ka shaqeynaynaa aan ku dadaalaynaa inaan ku hagno wax wanaagsan annagoo ka cibro qaadanayna khibradihiina soo maray muddadii burburka iyo intii dowladdu ay jirtay oo laakiin dowlad liidatay ay ahayd oon awood lahayn annagoo ka faa'iidaysanayna marxaladaasna soo maray annagoo ka faa'iidaysanayna iyo duruufahaasna soo maray inaan dadka ku hogaamino ama aan u iftiimino wax wanaagsan haddii loo tilmaamo dadka Soomaaliyeed wax wanaagsan iyaga kaaga hormaraya waa dad madax furan waa dad maxaan ku raahdaa aad u caqli badan oo firfircoon marka haddii la tuso wax wanaagsan iyaga 100 jibaar kaaga hormaraya haddii wax xun ay arkaan iyaga kaaga hormaraya marka insha Allah waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu nagu aadiyo wax wanaagsan iyaguna ay nagu raacaan nagu taageeraan inaan ka shaqeynayno horumarkooda iyo mustaqbalkooda madaxweyne adigoo mahadsan filashada shacabku qabo iyo waqtiga dowladdu haysato islama eka dowladku waxay ka sugayeen dowlad dhamaystiran dowladdii hore Soomaaliya xilligeedii burburkii ka hor jirtay mid lamid ah helaan hamuun noocaas ay qabaan maxaad u sheegi lahayd oo aad leedahay waqtiga noo haray waan qaban doonaa ama way noo qorshaysan yihiin oo dowladnimada la xiriira dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa waa dhab expectationka iyo filashada ay dowladdan ka filanayaan wax weyn waa wax jira iyaga kaligood ma aha shucuubta adduunku waa saas markii burbur la galo waxay filayaan dowladdii timaadaba markaasi inay markiiba ay dad dalka barwaaqo geliso xaqiiqda jirta waxay tahay oo rabaa qof walba inuu aamino ama maskaxda ku hayo ama maanka ku hayo waxay tahay in wax la dumiyo waa hal maalin laakiin wixii la dumiyey in la dhiso sanaday qaadataa marka dalku waa burburinay dhismihiisa marka waxay qaadanaysaa intuu dhismayay in la eg ay qaadanaysaa wax cirka uga imaanaya ma jiraan oo u dhisaya iyo dowladda shisheeye oo u imaanaya oo u dhisaya ma jiraan saaxiibo waa jiraan gacanna siin karaa laakiin iyagaa laga rabaa inay dhistaan inay ku hadlayaan keliya ma aha
tobanka qof ama 20 qof oo xukuumadda ku jirta oo aniga aan madaxweyne u ahay iyo golaha shacabka iyagaa laga rabaa burburkii dhacay sidii looga kabsado inay hawshii ay qayb ka noqdaan dhismahana dowladeed waxay qaadataa iyada naftigeeda muddo dheer iyo qaata maxaa yeelay iyada naftigeedu waa burburtay muddo dheer ayaa lasoo dhisayay 30 sano ah intuusan dhicin dowladda dhexaysan lumin 30 sano waxaa la baranayay waxyaabo badan khibradaa lasu gudbinayay wixii waa lumeen marka institutionska naftigooda dhismahoodu wuxuu u baahan yahay khibrado iyo isu banayn iyo knowledge transfer wax la yiraahdo iyo waqti iyo u baahan tahay ciidanka dhismihiisa oo isna muhiim ah waqti u baahan yahay isaga naftigiisa marka mid inay ogaadaan ayaa loo baahan yahay shacabka burburku sartaan in aan dumino waa saacad wey laakiin markaa weydiiso waa sar kaliya ogow markaa weydiiso meeqaa lagu dhisay wuxuu lagu leeyahay sanad marka dowlad maxaa moodaa marka ma fahamtay dowladdu waxa weeye waa sanado yaa lagu dhisaa dal sanadaa lagu dhisaa barwaaqo sanadaa lagu dhisaa dhirtii iyo geedihii la abuurto iyo beertii la abuuro hadda hore kama soo baxdo waa la sugaa marka shacabka Soomaaliya waxaan leeyahay sabr lahaada patient lahaada dulqaata dowladda keliyana hasaarin culayska idinku naftigeena qaybtiina ka qaata waxa ugu horeeya oo la rabaa inay qayb ka qaataan inay dhiibaan canshuuraadka ha u arkaan inay tahay qaran inay tahay oo ay qaranka ay siinayaan markii canshuurta ay dhiibaan oo dowladdu ay yeelato dakhli fiican oo soo gala wax badan bay ku qaban kartaa annagana ammaanada inaan ilaalino oo wax alla wixii ummadda ay dhiibaan sidee tahay oo adeegooda ay danahooda aan ugu qabanno laakiin hadday iyaguna gacmo xirtaan ama jeebka xirtaan oo ay sugaan annaga inaan u baryo tagno caalamka oo dowlado shisheeye oo ismaamulay iyo shacab shisheeye oo ismaamulay oo dhiibay maxaan ku raahdaa canshuurtooda dhiibay wixii ka soo haara haddii aan weydiisano annagoo dhan iyo ceeb nagu tahay waxay noo tahay qabjab iyo noo tahay waxay noo tahay maxaan ku raahdaa foolxumo iyo ihaani noo tahay marka wax walba gacanteena ku jiraan meel kale inaan ka raadina maaha hadda waataan kuu sheegan ku yiri isku tashi waa dad isku tashaday marka haddii dadkaasi ay ku tala noqdaan dowladooda oo ay canshuurta lagu leeyahay ay siday tahay u bixiyaan waxa uga soo baxaya inay iskuuladooda ilmahooda ay u helaan iskoola lacag la'aan ah in maxaan ku raahdaa adeegyadii dowladda oo ay lahaayeen nabadgelyada ugu horeyso inay helaan in cisbitaallo meel walba aan gaarsiino in jidad meel walba aan ka bixinno in eerabooro aan dhisno dekedaha inaan badinno maxaan ku iraahdaa khayraadka dalkii inaan soo saarno shaqo abuur in la keeno marka wax badan ayaa ku jira qofku wuxuu bixinayo oo canshuuraha ah isagay si toos ugu soo noqonaysaa ugu dambeyn maxaad oranaysaa shacabka daawanaya kugu dhegeysanaya telefishinka SBC SBC aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa waxaan idin leeyahay xoogga saara inaad dadka wacyi gelisaan waa ogahay inaad u sheegtaan wax badan oo wanaagsan oo run ah ku wacyigeliya dalka in la dhiso ku wacyigeliya in dalka loo wada adeego shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay gacan nagu siiya hawsha aan ku jirno ilaahina ha noo fududeeyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan ku wareegsanay magaalada Gaalkacyo madaxweyne aad baad u mahadsan tahay